xanuunka coronavirus ka jira Soomaaliya ayuu ciwaan uga dhigay. In ka badan 1,000 ruux ayaa u dhintay xanuunka coronavirus, in ka badan 40,000 oo ruuxna waa uu ku dhacay oo caalamka oo idil ah, Shiinuhuba ha ugu badnaadee. Coronavirus waa cudur faafi og oo faraba'an ku haya dalka Shiinaha, gaarayna wadamo badan oo bari iyo koonfurta bari Aasiya ah, Yurub iyo Ameerikaba. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO waxa uu ku dhawaaqay in magaca rasmiga ee xanuunkani uu yahay COVID-19. Dalka Shiinuhu dagaal xoog leh ayuu hadda cudurkani uu kula jiraa xagga xakamaynta iyo daaweyntaba. Wadamo badan oo adduunka ahina waa ay ka gaashaanteen in xanuunkani uusan gaarin dalkooda, haddii uu gaarana uusan ku faafin. Wargeyska The Guardian oo ka soo baxa magaalada London dalka Ingiriiska isagoo soo xiganaya qabiir reer Hong Kong ah, waxa uu qoray in haddii cudurkani la xakamayn kari waayo ay dhici karto inuu ku dhaco dadka adduunka ku nool marka 3 loo qaybiyo 2 dalool. taa waxay micnaheedu ay tahay in 100 qof oo kasta oo dunida ku nool ay suurtagal ay tahay in 60 ka mid ah xanuunkani uu ku dhici karayo. Qaaradeena Afrika weli lama hayo qof la hubo inuu xanuunkani uu ku dhacay, marka laga reebo 5 ruux oo la tuhmay oo weli la sugayo natiijada baaritaankooda sida ay faafisay idaacadda Mareykanka ee NPR. Haddana qaaradu ma haysata qalab ugu filan baaritaanka lagu ogaado qofka qaba cudurka. Afrikada saxaaraha ka hooseysa oo dhan 2 shaybaar oo kaliya ayaa ku yaalay oo caddayn kara markii uu cudurkani dilaacay. Afrika oo dhan, Senegal ama Koonfur Afrika ayay baaritaanka u direysay ama Yurub. Hadda waxa la gaarsiiyay 11 shaybaar, macnuhu wuxuu yahay 47 dal inay haystaan 11 shaybaar oo kaliya. Siyaasadda caafimaad ee hadda qaaradda ay ku dadaalayso waa inay isku daydo inaanu cudurkani sooba gaarin. Aan eegno Soomaaliya. Waxaa taxadar gaar ah u baahan goobaha laga soo galo dalka ee hawada, badda iyo dhulkaba. Arday iyo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Shiinees ah ayaa intaba dalkeena yimaada. Shalay Soomaali iyo Shiinees intaba waa ay ka yimaadeen dalka Shiinaha sida aan maqlayo. WHO waxay sheegtay inaanay ku talin in safarka la joojiyo, laakiin waxay dalbaysaa in si sax ah loo baaro musaafurka. Waxaa kaloo ay ku tilmaamtay warbixinta in qaaradda Afrika meelo badan oo ay ka mid tahay ay ku yar yihiin qalabka lagu neefsado ama lama huraanka ah ee qofka uu cudurkaasi uu haleelo u adeegsado. Soomaaliya waxaan u baahannahay in mas'uuliyiinteena caafimaadka iyo dawladda oo dhamiba ay qaataan tallaabooyin qiyaasan oo looga feejignaanayo inaanu cudurkani soo gaarin dalkeena. Ka hortagna waa suurtagal haddii dadaalkiisa lala yimaado. Marka la fiiriyo xaaladda hooseysa ee adeegga caafimaad ee dalkeena iyo dhaqankeena oo ay ka mid tahay salaanta gacmaha in la isgeliyo ee faraha badan, haddii uu soo gaaro COVID-19 waa halis oo waxaa la saadaalin karaynin waxa ka dhalan karaya. Sidaas daraadeed waxaa ila habboon in looga feejignaado sida halis amni qaran oo kale. Dhaqaatiirta caalamka qaarkood waxay dadweynaha kula taliyaan in la iska dhowro farku taabashada sanka iyo afka iyo indhaha adiga oo aan saabuun ku faraxalan. Iyada oo aan argagax la abuurin, haddana waxaa muhiim ah in hay'adaha qaabilsani ay talo wanaagsan ay bixiyaan, isla markaana ay qaadaan tallaabooyin feejignaan ah, lagana fakaro oo loo diyaariyo goobo hadiiba uu na soo gaaro wax markiiba lagu dhaqaaqi lahaa iyo cidda lala kaashan karo. Waan ku kalsoonahay in mas'uuliyiinta caafimaadka iyo dawladduba ay iga macluumaad badan yihiin, taasi igama reebaysa baraarujin. Allow naga badbaadi halistiisa iyo halis kale oo kastaba. Warbixintani waxaa qoray Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana qoraalkiisa uu ku daabacay bartiisa blogga uu ku leeyahay.